waxaan ku dhex jirnaa taxanaheenii aan kaga hadlaynay macdanaha. Mar walbaba waxaan tusaalayaasha u soo qaataa laba ama ka badan marka qaar gaara 5 shay sida ay u kala duwan yihiin in la ogaado aan la isku khaldin. Taas oo aan ugu talagalo dadka Soomaaliyeed ee walaalahay ah ee aan aadka u taageero. Mar walbaba waxaan isla ogaanaynaa diamond-ta iyo waxa isu eg quartz-ka. White quartz iyo diamond waxaa jira marka waxyaalo ay ku kala duwan yihiin markii la sii baaro sida loo kala garto xoolaha aynu dhaqanaba. Hadda labada dhagaxa background-ka madowga leh waa diamond, dhagaxa meesha dhismaha ay ka dambeeyo naqnaqalena waa quartz. Dhagaxa quartz-ka iyo dhagaxa diamond-ka waxay leeyihiin ilaa 6 waxyaalood oo si degdeg ah loo sii kala heli karo. Marka koowaad dhagaxa quartz-ka ah gudihiisa haddii la sii fiiriyo waxa laga yaabaa waxa shishe ka yaala in la arko inay macquul tahay isagoo inta badan muraayad noqon kara. Markii loo eego diamond-ka waxay u badan tahay dhankiisa shishe inaan waxa ku qarsoon si toos ah loo arki karin. Sida halkaa ka muuqata quartz-ku cadaankiisu waa nadiif, laakiin diamond-ka waxa ku jiri kara wuxuun madow aad u malaynaysid. Sidoo kale dhalaalka diamond-ku aad ayuu u dhalaal badan yahay, xagga quartz-ku xoogaa ka dhalaal yar yahay. Sidoo kale waxaa jira tijaabooyin la maro oo lagu ogaan karo sida haddii aad shay muraayada soo qaadatid oo aad labadan dhagax diamond iyo quartz aad ku xoqdid, diamond-tu si fudud ayay uga dhex baxaysaa una kala goynaysaa. Xagga quartz-ku inuu kala gooyo waa macquul, laakiin wuu ka adag yahay qaabka iftiinkaas soo jiidashada tirada badan leh ma lehen. Sidoo kale diamond-tu waa aad maado u adag, awoodeeduna waxay gaadhaa 10 iyo wixii ka badan. Xagga quartz-ku 7 iyo wixii ka hooseeya hardness-kiisu uu yahay. Waxaa jira aqoomo kale oo dheeraad ah oo qofku uu kaga sii faa'iideysan karo oo aan u hayno. Haddii aad diyaar u tihiin waad nala soo xiriiri kartaan. Waxaa jira lecture dhan oo aan bixino ama cashar dhan oo macdanta quseeya. Casharkaas oo 2 step dadku ay u qaadan karaan. Mar walba oo aad nala soo xiriirtid waxaad naga heli kartaa xog iyo waxtar intay doonaanba ha la ekaadeen macdaneed. Waxaa jira marka ilaa iyo haddeerta 30 muuqaal oo kan ka horeeya oo aan horey uga soo dhigay macdanta. Waxaana maskaxdayda ku qarsoon ilaa iyo 6,000 oo macdanood xogtooda. Intaa marka aan ka imaado waxaan awood u leenahay anigu oo kaashanaya saaxiibo caalami ah iyo saaxiibo daakhili ah ama gudaha ah iyo kuwa caalamka fog ah in aan awood u helo in aan dadka Soomaaliyeed ka hormarino dhanka aqoonta macdanta. Waxaa jira dad macdan in aan u baarno ay dhacdo oo haysta dhagxaan ayaga oo dadkaasi jooga magaalooyin iyo miyi labadaba. Ayaga oo looga baahdo sawir kaliya oo xogtii macdantaasi ay lahayd hadday nooc kasta oo loo baahan yahay tahay ay heli karaan si fudud ayaga oo sawir soo qaadaya sawirkaasna iskaanka loo gudbinayo. Kaas oo fududeysay waagii hore shaygii la qaadi jiray oo meel baaris la geyn jiray qofka taraag u geli jiray. Hadda asagoo geeliisi raacanaya ama arigiisi raacanaya ama gurigiisi jooga